arrinta maxkamadda lagu kala baxaya. Okay, ka soo qaad aniga horta isaga uu yahay maxaantay anigana underage ba ahaa sigareeta ba ahaa. Okay, imika 22 ba ahay. So waxa cadeynaysa meeshan gabar yar inuu abuse jiray. So si dowladiyana qof oo cumrigiisa yar yahay in la shaqeyso ama waxa u leeyahay oo mowduuca agrisid khalad ba waay. Okay, waad maqlaysaan haddaba waxaad maqlaysaan waa hooyo Soomaaliyeed oo daayira waa hooyo Soomaaliyeed ayadoo under 18 sida ay inoo sheegi doonto ayaa Daahir Calasow uu bartay kadibna lacag fuuqul aqliya ayuu si haddaad maqli jirtay ilmaha Soomaaliyeed jidadka laga soo qabsadayo daroogada dadka ganacsada ilmaha yarka lacag siyaano way adeegsadaan haddaad maqli jirtay وده على سوى استعمال الجبر عند الرئيس سلا إنه شيء يسوي وقت يسبرتني عند الرئيس هاي العقل وسيء ونيرني ما نص صحة فيديو يقصد دوب حتى كيف كرزة فيديو سلا دوبا تلف كي هذا شاشة يسوي ملود هاي فيديو نقضوه يا صار شاشة يسوي ملود هاي صار شاشة يسوي عد هاي وقف على هذا فيديو نقضوه يا واحد جرا وأنا أكتنا ذي كمان إن فيديو نقضوه قف كسبون كور قبين تلف كي نقضوه يا وواحد هذا فود gabadhan waxay sheegtay in ay soo dhamaadeen wax kasta haddana aqligeedu uu majuur yahay oo 22 sano jirtay diyaarna u tahay inay dacwooto oo ay maxkamad ay isla koraan ayadii Daahir Calasow markii laga hadlayo ilmo da'yara ee la sasabtay ilmo da'yara ee la taataabtay ilmo da'yara ee la saaxiibay ilmo da'yara ee lacag la siiyay ilmo da'yara ee leh loo dirsaday shaqo maxay tahay hadaba dambi inta laag ayuu ka yahay markaad joogtid galbeedka wax aan hadda halkaan kaga sheekayno isbarayna ma haddii ay tahay sida ay sheegayso oo markii ay Daahir isbaranayeen ay ahayd under 18 ay ahayd ama ay ka yarayd 18 sano hadday ka yarayd markii Daahir Calasow la soo xiriiray ay isbarteen oo lacagta siiyay hawshan uu diray haday intaas ka yarayd wadan aad u weyn aan dhageysano da'deedu intay ahayd iyo meesha ka bilowdeen iyo waxa ay damacsan tahay go'aanka waa go'aanay maantadan soo gaartay aan wada dhageysano codkeeda aan wada dhageysano arrintan faraha kala ma baxayo ama aniga TikTok ku hadhay ama Daahir Calasow ku hadhay labadaas mid way markaantay ama aniga xabsi galay ama isaga galay dacwadana kor u qaadaya ilaa waxa gaarsiinaya markaantay dawladda markaas maxkamadda isla fuulayna meesha ku kala dhamaanayno ama aniga isaga mid guuleysanaya sheekada imika maaha filinka waxay ku fiican tahay markaan soo dhameeyo markaantay imika qof ay soo wacay waa layla soo hadlay waxa la dhahay inuu arrinta ma xidhi kadib markaantay arrinta maxkamadda lagu kala baxaya. Okay, ka soo qaad aniga horta isaga uu yahay maxaantay anigana underage ba ahaa sigareeta ba ahaa. Okay, imika 22 ba ahay. So waxa cadeynaysa meeshan gabar yar inuu abuse jiray. So si dowladiyana qof oo cumrigiisa yar yahay in la shaqeyso ama waxa u leeyahay oo mowduuca agrisid khalad ba waay. Okay, ما واحد صورون محكمة كشيء هوردين يا محكمة آدية مركز لوير بقى قبسنيا أبيه بان وصيا تيك توك إيو سوشيال ميديا إيو قبيل إيو وحلا وص دوماني وحاس كسوها صباح نفترض الدفاع عنها يا أدوين العجها الوصل الرصيدة دي ما هيسا هيا بايبل كي كجران سكريم شلون كسوق هذا كره أوكي هاي سو رصيدة ده عايزتي أوكي عدد عضينا إن متقانا وحيالها السنة وحضينا ما هيسا وانستا عدد كدير ماركت انت يريس كان كدارة كوسو دري فيديو عدد كبديهين على قيبه انت عرفت كم هي مكاكلية كشدي رجولي كذا ما يسي انت كليتو واقرصتي انت كليتو واقرصتي انت كليتو ومهم واي عدد كاس سو وحيابا كستبا ميشاسي كجران wax kasto shirqool iyo wax kasto meeshaas ku jiraan so markaas arinta imika social media wayba soo dhaaftayba waxay imanaysaa maxkamad in la isoo hor istaago oo la isla dhameysto. Okay, maxkamad TikTok been u furtay maxkamadda runta naagti taajil lahayd aniga waay
mida tiktoka dad run u haysta moogta mida tiktoka hamigiisi maxkamad way moogta maxkamadda runta aniga u rumaynaya inuu istaago. oh my god ya adwan hamigiisi aa rumaynaya riyadiisi. wallahi dad badan horta waa ku duceynayaan dad badan oo dhiban oo mataqaana maalin kasta loo booteeyo gabdho badan oo mataqaana dhibaatada soo aragto kala lagu haayo dad badan waa aad iyo aad waxaan dhagaysanay oo daawanay walaasheen gabadha la yiraahdo magaceeda xubi qaali waxay go'aan ku gaartay inay maxkamad ka dacwayso waa sida ay noo sheegtay in waxay noo sheegtay ay tahay qof dhibana ah qof la dhibaateeyay waxay noo sheegtay inay tahay ilmo da'yar oo yar waxay noo sheegtay inay da'yar ahayd inay under 18 ahayd inay 18 sano ka yarayd da'da ay ilmuhu ku qaangaaraan inay ka yarayd bay noo sheegtay marka qofka la macaamila ilmo aan gaarin da'doodii kolley waxaan u malaynayaa waa dembi culus waa dembi aada u weyn weliba ilmo inaad rakaataysid aad lacag siisid aad u isticmaashid inay gogol dhaaf samayso dad ay la samayso micnaha dembigan wuxuu noqonayaa intaasoo dembi kow dadka victimiska xitaa dadka maxaad ka rabta maxaa u duubata ilmaha in la weydiiyo maxaad ilmaha ula xiriirta waa mid maxaa ilmaha lacagta u siisa maxaa ilmaha u ismaashay ilmaha markay ilmaha ahayd gabadhaan inta su-aaloo ka imaanaysa ama dembigeeda horta xisaab male kadib asaga lafirkiisa inuu dad intaasoo dhan ah uu isticmaalo dad kale u diro shabakada u shaqaynaysa maxay tiya shaqadan kuu dirtay asil shaqadan kuu dirtay macnaha wadankiibu wuxuu ka galayaa dembi maxaa yeelay wadankiibu wuxuu ku samaynayaa waxyaabo sharci darra marka arrinka hadday dhab tahay sida gabadhaan noo sheegtay in ay sax tahay cadaymana la helo sida ay sheegaysana maxkamad ay tagto waxay noqonaysaa arrinkaanu haddaa maqli jirteen bidiri haddaa maqli jirteen ka daahir diri ayaa soo baxay soo garatay ma daahir diri ayaa soo baxay qofkana xumaantu qofku markuu qof xumaan falay yahay xumaantu way kaydsamaysaa maalin ayay soo baxaysaa waxna lagama qaban karo ninka hadda big diri leeyahay wuxuu ahaa nin sharaf loo la yaqaan oo lagu sharaf weyn le macnaha lagu casuumo meelaha qaaliga ah la respect gareeyo ayuu ahaa madaxda ugu sarreysa adduunka la kulma sharaf le maantaytana xagee ku jiraa xabsi buu ku jiraa maanta xabsi buu ku jiraa ficiladiisiyaa loo haystaa keliya si ula dhaqmay dadkii uu la joogay xaasaskiisii gabdhihii saaxiibada la ahaa waxyaabahaas ula dhaqmay maanta dembi ugu jiraa soo marka daahir cali sowna haddii arrinkan xaqiiq ay tahay inuu isticmaalay gabdho oo lacag ku siiyay inay nimankan la seexdaan oo usoo duubaan asagana waa dembi aada u weyn runtii oo lamida kaasoo kaleeto marka waxaan sugnaa maalmaha fooda inagu soo hayeen arrinkan ma sax buu noqon doonaa waxyaabo kamida waan aragno waa sax laakiin arrinkan ma banaanku u soo wada bixi doonaa mise meeshiisu uu ku joogsan doonaa anagu markasta waxaan ilaalinaa xuquuqda ciyaalka iyo hooyada gabadhaasay sheegtay markii la isticmaalayay ilmay ahayd sidaa aawadeed ayaan programkan usoo dhexgalnay waxaan markasta difaacnaa ciyaalka waxaan markasta dhiirigelinaa aabayaasha iyo hooyooyinka inay si wada jiro ilmaha u koriyaan afkooda soomaaligana baraan afkaaga haddaad bari weydo cunugaaga wax kalood bari kartid male soo cunugaaga afkaaga kula hadal yaanan arkin ilmo afka aan ku hadlayn ummadahoo dhan afkooday ku hadlaan meel kastoo ka imaadeen marka soomaalida laga reebo marka taasna dee qaladkaas waxaa iskale waalidka programkan waxaan kasoo galnay marka dhinaca ilmo la abiyuusay ilmo la isticmaalay baan kasoo galnay ee maahane waxyaabaha badan ee ka jira tiktoka annaga shaqo kuma lihin soo haddaad nala socotid ilaa iyo hadda badanka nala soo gaartay please youtube channelkayga subscribe saar adoo mahadsan intaan muuqaalkan muuqaal lamida ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo